السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعنا ونكسن صاحبتك وحرن جنالك كسو دوادا مانتي موضوع حساسية وأنا ربح هالكان إنك جهله وحن سميي لبت جابو وأن قاضي بالآراء فكرة إن كستود دتك قار سبيشال قربهن إن عبيهين كاميرا أو إن السوشيال ميديا ذا كهلان يجو سياسة كهلايو إن عبيهين سبب لا حريرة حاجة أما شرعية أما أرمك لو أيجو قاسة أما شرعية ودن كسي وهلاين قاركود عن شرعي سن سبب الحر أول لكن شخصي أيان دتك وحن وقاد آراء أما أفكار بل سد أي لتهاي دمع إثيوبيا أباي أحمد يكون آدن تكد سيلة واتا أنا شخصيا كوري إندوس كمع الإندوس أهان أد بي تابتي برنامج أيان هذا كهر مرأة عاصمة فيينا بوقدي دلك أستريا برنامج ير أيان كسميي أو دليرة عدد أنك قاعدة يسدو كلته أنك جهل لأنه سدوا أركتها دليرة فكرة كلا دوينة كم عسيز هذا بس هو هذا سومالي لان ومتعلق قصدان dad baa waxay aaminsan yihiin ama dhalinyarada qaar baa waxay ku hadaaqayaan arintan waxay u taala Somaliland uma taala arintan waxay u taala qof walba oo Soomaaliya min raas caseer ila raas Kamboni Soomaaliya waxay leedahay tagado iyo badad mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu deeqay oo aan lahayn dalalka kale oo Afrika aan lahayn Soomaaliya waxay leedahay kheyraad aan adduunka intiisa kale heesan ay leedahay Soomaaliya waxay leedahay beero iyo wabiyo aynana haysan caalamka intiisa kale inta badan Soomaaliya waxay leedahay kheyraad dabiici ah kaasoo ay u baahan tahay inay soo saarto Soomaaliya waxyaabo fara badan ay leedahay taas ayaana kaliftay in wadamo fara badan ay ugu horeyso Kenya damaceedii ku hungooday ku xigto Ethiopia iyo wadamo kale fara badan oo naga fog intaba oo si indirect ah kheyraadkan u qaatay ay ku taamayaan sida Soomaaliya ay tikadooda u wareegayeen iyo antidooda iyo mataqaana ay kheyraadkooda waaye Soomaaliya labada bad ee ugu muhiimsan madara midda gacanka carbeed ee mataqaanay North Westiga janaalka Gardafu isku xiraaya iyo midkan kale ee India Ocean ah labadaba waa laba bad oo muhiim ah waxaan rabaa marka inaan shay muhiim ah yani aan ka dhawaajiyo shaygaas muxuu yahay Soomaaliya markii aan ka hadlayno mataqaanay laga hadlayo badan Sayla waa bad istiraatiiji ah waa bad mataqaanay markii laga hadlayo yani ku xisaabtanka Ethiopia ee ku xisaabtamayso aan ahayn wax hadda soo bilaawmay Ethiopia hadda ka hor ninkii xasuusto ama la socdo waxay soo xirtay dufcado far badan oo u soo tababaran ama u tababaran ciidamada badda Soomaalidu ilaa wili dad yani waaqici ah ma aha dad waaqici ama waaqaca u jeeda ma aha ilaa hadda wili waxa u muuqdo iyaga ayaa isku muuqdo wili waxa ka dhex muuqdo qabaa'ila ka dhex muuqdo waxa ka dhex muuqdo waxyaabo fara badan oo wili aysan ka korin oo 30 sano wixii aan isku haysanaa ah oo meeshii aan taaganahay ayaa ka muuqdo waxyaabaha marka iga yaabiya waxay tahay laba waxyaabood way tahay Ethiopia inay soo damacdo tagada Soomaaliya Sayla Somaliland macnaha Somaliland waa Soomaali marka runtii idin sheego tagada Soomaaliya inay soo damacdo oo dhul Soomaaliyeed kamid ah oo ra'iisul wasaaradii uu ka hadlo oo Ethiopiaanka meel walba ay la fadhiyaan oo social media looga hadlaayo oo Twitteradii looga hadlaayo oo ilaa hadda dawladeena federaalka ama baarlamaan aado ama wasiir aado cid ka hadasha aan jirin madaxweynaha waa garan karnaa dagaal buu ku jira Arsenal dagaal ku jira duur ku jira garba ku baxay hawlo okay aaway dadka kale ee mas'uuliyiinta dawladda maxaa loo waayay qof ra'iisul wasaare Abiy runta u sheega حتى Somaliland maamulkeeda ama madaxdeeda qof inta beediye soo istaagay Abiy Ahmed runta u sheegay malahan markii laga tago xukuumadaha ama siyaasiyiinta mujtamac Soomaaliyeed ee ama mudaharaad ka sameeyay ama ka hadlay ama Ethiopia xataa ficil u muujiyay ma jirto oo dhahay anaga Ethiopia ma soo damci kartid kadeena mana sameyn kartid mana yeeli kartid ana indhahayga live ugu daawaday Al Jazeera asoo ka hadlaayo رئيس وزراء أباي
asoo dhahayo dekada laba siba waa kula wareegaya ama xeelad ayaan kula wareegaya oo sidaan doono markaan u akhriyo reer Somaliland way isiinayaan haddii didaan xoog baan kula wareegaya haddaba ma aha wax Somaliland kaliya quseeya waxaan aaminsanahay aniga haddii ay isku daydo Ethiopia inay saylac xoog kula wareegto waa mid Soomaaliya oo dhan ay ku midoobi lahayd hal dhinacna isku raaci lahayd markaan ka soo tago waxa jirta fikir aad daciif u ah oo dhalinyarada qaarkood aan ku soo arkay يعني لبا waxayba waa u sabayn karaa kow nin aanan arag dawladnimo iyo ma taqaanay wax dawlad ay tahay aan arag ee ku dhashay burbur iyo meel qabaa'il ku dhashay meel qabaa'il ku barbaaray ma taqaana dhagtiisa qabaa'il ku soo barbaareen aana garaneyn baqaranimo iyo wadanimo waxay tahay kow labo jaahilnimo dhalinyarada qaar baa waxay ku doodayaan annaga maxaa naga galay Somaliland tikadeed hadii la qaato Come on guys استحي يا أخي dhulka Soomaaliyeed iyo dekada Soomaaliyeed meel walba ay taalo qof walba iyo shakhs walba oo Soomaali waa inay isku si u saameysaa waa inay dawladda Soomaaliya marka laga hadlayo dhul Soomaaliyeed oo la soo faragashtay dawladda Soomaaliya waa inay ka hadashaa maamulka Somaliland iyo madaxda Somaliland waa inay ka hadlaan مجتمع الصوماليات كان هرجيسة جوج إلى راس عسير إلى راس كامبون وإلى كم بتظاهر هذا بيها أنت سكسو جارين أيا لسكموسا وحي أوبا هنتها إثيوبيا هذا إن لسكموس وحي أوبا هنتها وحبايد مع سنتها لابد يكون يصدق سيدا أي إلى ورادي أنكو هلي لابد يكون يصدق إثيوبيا وحي تبع سنتها تكت كم ده كده الصومالي إن ستوس إلى وريكتو adiga oo nool oo soo jeeda ayaa lagu tashanaya idinkina waxaad ku mashquulsan tihiin ma taqaanaa kursi hebel laba xisbi hal xisbi hal qabaa'il come on things need to be changed wax in la bedela loo baahan yahay soddon sano meesha taagnayn ma taagnaanina Soomaali waxay u baahan tahay mentally inay ka korto qabaa'ilka inay ka korto wax badan inay ka korto loo baahan yahay waaqici in la noqdo loo baahan yahay waxaan markii muuqaalkan ugu tala galay dhalinyarada aaminsan in Somaliland kaliya ay leedahay tikada saylac Somaliland malan saylac maalinta Ethiopia soo damacdo qof walba oo Soomaali ah ayaa ableediisa qaadanaya oo dagaalamaya qodob waa qodob taasi qodobka labaad madaxda Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan u soo jeedin lahaa inay ka hadlaan jawaab ku haboon ay siiyaan ra'iisul wasaare Abiy oo si cad meediyada uga sheegay si cad oo gabasho lahayn meediyada uga sheegay oo yiri ama xeelad am xoog ba kula wareegaya saylac war dhalinyaradii wax baratay ee reer Somaliland meeye siyaasiyiintii reer Somaliland meeye dawladda federaalka ee sheeganaysa Soomaaliya inay xukunto meeday mujtamaci Soomaaliyeed dhiiga lahaa ee dadnimada ku jirta meeday all idinka dhaxliina sidii ma taqaanay rati maxshar shida iska dhax dabalaabanaay gooja cadeeb heblaka harti barkaa ma taqaanay laba xisbi laba magaciisid what the hell is going on wax ka weyn meesha yaal wax ka weyn internal problem external problem ka daran dibka banaanka kaaga imaanaya ka daran kan waaba xalin kartaaba ama waa kala adkaan kartaanba adba idin salaamaya walaalkiin wariye macallin Indos oo idile سيدنا بعدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.